gobolka Soomaaliyeed war-saxaafadeed Muqdisho 23 February 2026 golaha mustaqbalka Soomaaliyeed wuxuu ka xun yahay gabiyahanba waxaa burburay shirkii wadatashiga aayaha Soomaaliya oo u dhaxeeyay golaha mustaqbalka Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliya. dabcan tabintan waxaan ku falanqeyn doonaa waxyaabihii halkaas ka dhacay. dabcan waxyaabaha aan aad ku hadli doonaa waxaa kamid ah qaabka uu bilowday shirka ma la oran karay shirkani wuxuu ku soo dhamaan doonaa guul. sidoo kale dadka inta badan madaxweynaha uu ku casuumay inay shirkaasi ka mid noqdaan oo uu xisbigiisa ka soo xushtay ayaguna sidoo kale ma ahaayeen dad u diyaarsan inay shirkaan sii wadaan ama waxay ahaayeen kuwa micnaha loogu talagalay inay fashiliyaan. dhanka kale mucaaradku ma ku saxnaayeen inay filla Soomaaliya aqbalaan oo ay tagaan madaxweynaha u tanaasuleen ayaduna waan falanqeyn doonaa. sidoo kale waxaan ka hadli doonaa ayaa guul siyaasadeed jooga. dabcan labada dhinac qofkee guul siyaasadeed joogo qofkee guul aan joogo oo waqtiga uu ku socda intaas ayaan falanqeyn doonaa. saaxiibayaal soo dhawaada. waxaa la tabinayaa golaha mucaaradka ama mustaqbalka Soomaaliya ugu dambeyntii inay war-saxaafadeed soo saareen inkastoo dowladda Soomaaliya muddo ay ku dadaasheen war-saxaafadeedkaas uu soo bixin warbaahinta isu soo gaarin. ugu dambeyntii waa ay soo saareen isla markaana waxay sheegeen inuu gebi ahaanba shirkii burburay. qaar ka mid ahna waa ay ka dhoofeen magaalada Muqdisho oo waxay ku laabteen magaalooyinkii ka yimideen sida madaxweynihii Jubbaland oo Kismaayo ku laabtay saacadii hore ee maanta markii shirka uu dhamaaday isla markaana ku qanci waayay halkaas ka soo baxay. dabcan haddii aan fiirno marka shirkan qaabka uu ku bilowday markii ay yimaadeen Muqdisho madaxweynaha Jubbaland iyo Somaliland madaxweynaha Jubbaland iyo Puntland aan dhahno raali noqdo hilmaam hadalka kuma jiro. waxaa muuqatay in cagajiid uu jiray oo shirkani uusan sida la rabo u furmi doonin isla markaana uusan wax fiican natiijo fiican ka soo bixi karin. xildhibaanada qaar ayaa qabay sidoo kale oo mucaaradka ah oo isla markaana soo dhaweeyay nimankii halkaas Muqdisho yimid. marka bilowgiiba waxaa la dhihi karay shirkanu natiijo kama soo socoto ilaa la isla soo gaaray in madaxweynaha uu qadab ku casuumay nimankani oo la isla afkarto in filla Soomaaliya la tago kadibna halkaasi laga sii ambaqaado. waayahay markii filla Soomaaliya la tagay madaxweynaha Soomaaliya wuxuu meesha soo dhigtay uu keensaday rag saaxiibadiisa siyaasadda kamid ah laakiin aan la dhihi karin oo kuwa right handia ama gacanta midigta ama bidixda labadaba ah oo uu ka soo tagay kuwaasi. sidoo kale taliyaha hay'adda mas'uuliyadda saaxiib dhow yihiin waxaa laga dhigay nin dhexdhexaad oo hawsha iska wada asaga oo micnaha si caadi u wada inkastoo howl xasan sheekh uu soo dhiibay ay ahayd laga dareemi karay. marka taasu waxay dhalisay in gebi ahaanba wixii meeshaasi ka socday marka la fiiriyo nimankii fadhiyay title-ka ay ku fadhiyeen iyo weliba qaarkood xelalka in laga qaaday oo baarlamaankooda xitaa la duraayo xubintooda baarlamaanimo in meeshii soo fadhiisteen. su-aalihii la isku tutuurayay iyo hadalkii qaarkood waa iska qabsanayeen ay la boodayeen isla markaana wax aanan meesha ulnay ka hadlayeen ayadoo mustaqbalka Soomaaliya iyo doorashada iyo dastuurkan lagu ciyaara intaba laga hadlay ayay waxyaabo kale iyo dib u hadal bilaabeen. dhankaasi marka dabcan waxaa muuqatay in isla maalintii koowaad shirkaasi uu fashil ku soo dhamaanayo isla markaana la wada fahmayay sida qubaradu ay sheegayaan fashil inuu ku bilowday. taas waxay cadeynaysaa marka in shirkani mira dhalkiisa gabi ahaan baysan waxba ka soo bixi karin walow xubnaha qaar dowladda Soomaaliya ee meesha soo dhigtay ay keentay xitaa inaysan ogoleynba in lala shiro nimankan oo ayagu hawshooda in la iska wato ay rabeen oo kaliya oo weliba uu ka mid yahay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. taasuna waa midii koowaad oo shirka ka dhigdaba inuu fashil ku dhamaanayo. marka arrinta meesha taalo waxay tahay mucaaradku ma ku saxnaayeen in filla Soomaaliya shirka laga dhigo. dabcan taasu waa maya xaqiiqda sida ayaa waayo qofka aad la shirayso waa in meel dhexdhexaad ah oo dad idin dhex joogaan idin dhexdhexaad xaqiiqatan beesha caalamka iyo xalana in lagu qabtaba kama maarmin shirkani waayo madaxweynaha Soomaaliya iyo saaxiibadiisa hawsha lagala hadlayo waa ay sii wadeenba iyadoo lagala hadlayo hadalka u socdo ayay sii wadeen sida arrimaha dastuurka iyo arrimaha doorashooyinka intuba waa sii wadeen oo waxay ku adkeysanayeen shirka kasii sheegayeen sida saxaafadda noo joogday halkaas ay tabinayeen in doorashadii iyo qorshaheedu u socdo isla markaana aan laga hadli karin. marka haddii doorashadii qorshaheedu u socdo wax laga hadla meesha ma olinba dastuurkiina waa laga doodayay. marka wax tanaasul oo dhanka filla Soomaaliya ka yimid ma jirin. taasna qalad weyn iyo ilduuf ay ku dhaceen ahayd kula mustaqbalka Soomaaliya waliba la dhihi karo waa siyaasad yari iyo waaye aragnimo yari in qofkii ay ishaayeen oo laga rabay inay ayagu siday sheegayaan dalka laga badbaadiyay in haddana hooyigiisa ugu tageen. dabcan filla Soomaaliya waa dhul Soomaaliya iskale laakiin dadku joogo xilligaani sida ayaga hadalkooda laga dhihi karo ma aha dad macnaha lagu hadlay kara dalka ayagaaba dhahayo dalka waa laga badbaadinay. marka in meeshan dhexdhexaadiyaal caalami la helo waliba kuwa Soomaaliya taageera kama marnayn taasna qalad
kale ayay ahayd. qaladkaasna eediisa waxay kusoo noqonaysaa mucaaradka oo maanta warbixinta ay soo saareen dabcan waxba macnaa ayna samayneynba haddii markii hore ayagu ay aqbaleen inay villa soomaaliya aadaan. villa soomaaliya waxaa laleeyahay ninka keliixii diidanaa wuxuu ah axmed madoobe, waa uuna tanaasulay, waxaana inta badan warbaahintu qaar ay ku ammaanaysaba inuu tanaasulaad badan sameeyey ninkaasi, maadaama ay isku dhacyo badan kala dhexeeyeen dowladda soomaaliya. marka arrintaanu mucaaradka ayaa ku wada macnaha mucaaradka ayaa ku eedeysan oo ayaga ayaa madaxweynaha u tegey kadibna iga tag uu yiri oo keliya. waaya arrintaanu labada dhinacba yaa guul jooga marka la yidhaahdo, labada dhinacbo guulna waa joogaan, khasaarena waa joogaan, laakiin waa kala badayay. dabcan marka aan ka hadalno arrimihii dastuurka iyo doorashadii marka laga hadlo, dabcan soomaaliya oo inta badan federaalism ku dhaqanto, hal federaalana ku dhaqanto, dowladdu soomaaliya waxay guul ku joogdaa inay gebi ahaanba go-aankeeda lagu adkaystay bisha caalamkan, islamarkaa ay ka dhaadhacsiisay in nimankaanu wax ay aqbaleen aysan jirin, laakiin aan casunnay islamarkaana wixii aan rabnay nala qaadi waayeen, fikirna meesha ay kaysan waayeen. waana mid meesha ku jirto. waxaa la leeyahay mucaaradka iswata dhammaantood wax ay ku midaysnaayeen maba jirinba, wax ayba ku midaysnaayeen ma jirin. aan doorashada ka hadalno, aan dastuurka ka hadalno, waxaanan ahayn oo ay hayeen oo qorshe ah oo macnaha maxaan ku yidhahdaa hal abuur oo siyaasadeed oo ay hayeen ma jirin. taasna waxaa la leeyahay inta badan nimankanu hal abuur siyaasadeed meesha lama tegin. laakiin midda taagana waxaa nimankanu qaarkood waa xildhibaano, qaarkood waa inay dalka hogaamiyaan ay rabaan oo waqti kuma socdo, dhaqaalo badan kama baxaayo. qaarkood waa madaxweyne maamul goboleedyaal oo sharciyadu hadda una haysato oon hal sano un ay ka baxda hadday u badato oo xasan lasii dagaalami karo. marka xasan wuxuu ku qasbanaa inuu talada dhulka dhiga, islamarkaana waxa keliixu meesha u tegay ahayd inuu kala dilo, inuu qorshe kale ku kala dilay ahayd oo taas ayna ahayn. waayo nimankaanu waa fahansanaayeen, muddayna isla soo jabadeen, xasanna caqliyadiisa ay fahansan yihiin. markii la yidhaha si guud khasaarihii faa'iido waa jirtaa oo nimankanu wixii ay rabeen ayagoona laga hadlin loona aqbalin ay iska soo tageen. villa soomaaliyana waxeedii ayadoo nimankaas aan ka dhadhacsiisin ayay iska soo baxday. guusha la joogo marka waa guul aan la sheegi karin, laakiin khasaaraha ayaa waxaa in dowladda soomaaliya waqti u hayo, sharciyadoodana 80 beri kadib ay ka dhaceyso. 80 beri wixii ka dambeeyana qasab ay tahay in dalka doorasho u aado. xildhibaanadu ama kolaha xildhibaanada oo hadda doodayo oo sharciyada iyo dastuura madalaynaan dhahayno wax bil ka yar ayaa harsan, abril 20keeda inuu ka dhacay ayaa la sheegay. marka dabcan isku celcelis waa adiga bil iyo maalmo waa. marka taasu ayaa waqtiga waxa uu ku socdo waa dowladda soomaaliya. nimankan goboladii ay ka talinayeen inay iska aadayaan, nimankan kale xamar ay joogaan. dabcan dagaal haddii la yidhahna waa qasab, waa un caasimada ayaa gubanayso. marka eedeeda waxaa qaadaya madaxweynaha soomaaliya, waanu ku qasbanaan doonaa inuu mar kale iskugu yeero islamarkaana dalada uu dhulka dhigo. dabcan wixii ka soo baxa waa la arki doonaa, laakiin inta badan sida ay u eg tahay xasan taladiisa iyo go-aankiisa wuxuu rabaa inuu u maalmaro oo nimankan uuna u istaajin, maadaama muddo ay isla soo jabadeeyeen oo ogyaha waxa ay rabaan ay keliya inay tahay dalka inay doorasho ka dhacdo. marka taasu wada hadalkeeda iyo waqtiga ayaa sheegi doona dabcan siday ku dhammaan doonto. laakiin hadda shirka waa isku soo dhammaayay, waana fashiliyey. qaarkood waa bixeen nimankii, qaarna waa ay joogaan. dabcan lama ogay in qaarkood maalmaha soo socday ay bixi doonaan, inkastoo weli hal axmed madoobe uu keliya la xaqiijiyo inuu halkaas ka baxay.